بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، intii rabbi sahlo subxaanaه wa tacaala ayaan darsiga kan ka sheegi doonaa ku saabsiisan alislaamu wاlmustaqbal. islaamka iyo mustaqbalka mala waa eray looga gol leeyahay baan u malaynayaa inuu yahay in la odoroso ama la saadaaliyo ama la sahamiyo wakhtiga soo socda iyo islaamku xaalkiisu wuxuu noqon doono. islaamka halkan waxaa looga jeedaa baan filayaa un dadka muslimiinta ah, waayo islaamka ilaahay baa le waana ilaalinaya. haybku ilaahay wuxuu leeyay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila اllah. haybka kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka joogaana cidina ma oga rabbi mooyaane subxaanaه wa tacaala. wacindahu mafaatixu اlghaybi laa yaclamuha ilaa hu. sidaa ogeed alghayb اlmuطlaq markuu noqdo waa wuxuuna la ogyahay subxaanaه wa tacaala. laakiin waxay yidhaahdaan culimmadu haybka midna waa hayb muطlaqa, midna waa hayb nisbiya. haybka nisbigaahi waa mid la saadaalin karo oo la hayo qaanuunu sababiya iyadoo la isticmaalayo hordhaciisii, la rajaynayo inuu sidaa iyo sidaa noqdo. amaa haybka asliyan waxaynu leenahay ilaahay unbaa og subxaanaه wa tacaala. waxaanu isku sifaynaya caalimu اlghaybi falaa yudhiru calىa haybihi axada إila man irtaضى min rasuuli fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. ilaahay baa ku sifooba caalimu اlghayb, haybka ka og waa isaga, umana muujiyo rususha wuxuu u soo faray dadka ee ugu soo dhiibay mooyaane. haddaba saadaalinta bini aadamku uu ka saadaaliyo waxa soo socda, waxa bini aadamku u maraa waddooyin kala gedisan oo qaarna sharcigu xaq ku sheegayo, qaarna uu baaطil ku sheegayo uu buriyey. aadanuhu saadaalinta waxa soo socda dadka badhbaa waxay u maraan curaafayn iyo xidigin iyo faaliyanimo iyo wixii la mid ah. dad baa faal dhulka dhiga sida soomaalidu ay u dhigi jirtay oo kale, dabeetana ay yidhaahda min hebel baa soo baxay oo waxaasaa dhici doona. qaar baa cirka eego xidigaa intay bidhaamiyaan yidhaahda burji hebel baa soo baxiye xidig hebel baa yimi, waa caqrab baa yimi, kan baa yimi, dabeetana wax ka saadaaliya. qaar baa xaydh riyaad eega, intay neef riyo yaroo dhalay qalaan xaydhiisa eego, dabeetana yidhaahda saan baa wax u dhici doonaa, saan iyo saan bay noqon doontaa. qaar baa turub rogroga, qaar baa koobab dhiga, qaar baa xayawaan duuliya. waxaasoo dhan isku soo dar waa curaafayntaasi. ariiqa curaafaynta sharcigu wuxuu inoo sheegay inaanu ahayn ariiq laga saadaaliyo, bale axaadiista qaarkood ay ku tilmaamayso faqad kafara bima unzila calaa muxamed calayh الsalaaةu wasalaam. ninka faaliyiya waxaa rumaysta ee rumeeya inuu nin fogaada yahay, idan waa ariiq masduud fi sharc. shareecada islaamiga ah ariiq laga faaliya maaha, laakiin dunida aynu maanta joogno waa laga faaliyaa. bale waxaa ka faaliya kuwo waaweyn oo inagu aynu haysanay inuu cilmiyey. inta badan dadka aan diinta xoogga u rumaysanayn haybkana ka baqaya ka faadaliya, siyaasiyiintuna ugu badan yihin. caalamka siyaasiyiinta guryahan looga taliya waaweyn, faaliyayaashu way fadhiyaan, midba wuxuu rogaba iyo wuxuu u sheegaba. guryaha waaweyn ee dunida laga maamulo bay joogaan. dee kuweennan masaakiintahana kama madhna.
laakiin waxaan leenahay kaasi waa طariiq masduuda waa طariiq fi sharci aan bannaanayn masaadirta qaarkoodna waa masaadir dhanniya masaadir dhanniya markaynu leenahay waa masaadir male غaalib noqon kara lana rajayn karo inay u dhacdana la arkay inaanay u dhicinna la arag masaadirta dhanniga waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan kow alru'ya saalixa maalan riyada fiican nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya riyadu mu'miniinta inay mubashiraad u tahay sida u kala runsheeg badantiin in riyadiinnuna u kala saxnimo badan tahay riyadu xataa hata gaalku waxbay sheegi kartaa dee qur-aankaba ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa boqor gaaleed oo riyooday oo nebi yuusuf fasiray oo ummad lagu badbaadiyey riyadu waa nooc laga saadaaliyo laakiin inteeda badan iyaduna marar badan siday u timaadda ma aha ee ta'wiilaad iyo sharax bay u baahan tahay iyo tafsiir tafsiirkana lama wada haleelo oo dee ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaasheed ninkii u fadli badnaa nebigu markuu salaadda subax tukadaa buu odhan jiray waryaa riyaa arkaan u sheega dabeetana saxaabaddu waxay ku riyoodeen bay sheegi jireen riyaa la sheegay abubakar baa yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aniga igu daabaltaana isku daya aan fasiraanne abubakar baa isku dayey dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi akhtaata wa asabt badhna waad garatay qaarna waad la weyday marka xataa riyada la arkay sida loo sharxayana waana la asiibaa waana la garan waaya hadduu abubakar ba la waayey dee nin kalena inuu la waayi karo waa iska macruuf dhanniyaadka waxaa ka mid a wixii nubu'aadka ay ka warrameen alkutub alqadiima towraad iyo injiil iyo kuwa kan ahlu kitaabka kutubtoodii haddii aynu hubno intii waxyigaa inay tahay sax bay noqonaysaa laakiin maadaama wax kale lagu daray xadiiثu can bani israa'iila walaa xarajna lagu tilmaamay sax iyo baaطilba wuu noqon karaa waayo waxaynan kala sooci karin iyaga waxaa isku darsamay intii xagga rabbi ka timi iyo intii ziyaadaadka bini aadamku uu ku daray marka waxaynan kala garanayn sax iyo qaladkoodii laakiin nubu'aad tiro badan baa ku jira nubu'aad tiro badan sida dee axaadiisteennaba ay ugu jiraan wax badanoo mustaqbal ka warramaya ayaa kuwana ugu jira nubu'aad tiro badan leh waxaa kaloo ka mid a masaadirta dhanniga ah الدراسات العلمية دراسات كان علمية think tankisku meelahan mufakiriinta caalamka lagu ururiyo jaamacaadka iyo daraasaad kan cilmiga la sameeyo ee ka saadaaliya mustaqbalka dhaqaalaha dunida maxaa isbedel ku iman doona xadaarada dunidu xagee u socota bulshooyinka dunida xagee loo hagaya dee waa laga saadaaliyaa saadaashaas iyadu inteeda badan waxay ku xidhan tahay daraasa fi lmaadi in la daraaseeyo taariikhdii hore sidii wax u dhici jireen in la saadaaliyo maxay factorieska arrimaha waaweyn ee isbeddelka nolosha ku sameeya ee raadeeya waa maxay yani waddanku hadduu colaad galo maalan maxaa la saadaalinayaa dee inta badan colaaduhu waxay sababaan baynu noqonnaa waxa ka dhasha baynu garan karnaa waa saadaalin karnaa waa daraasaadkuu bilaabay kutubta macruufka la yaqaano waxaa dee ka sheekha ibnu khalduun fii muqadamati caalimkii muslimkee la odhan jiray taarikh alfalsafa in laga saadaaliyo falsafati taarikh in laga saadaaliyo waa ninkii bilaabay ee ah daraasa inuu sameeyo sunan alxadaaraat iyo waxa la mid ah dowladuhu markay maxay dhacaan bay dhismaan marka maxay ku yimaadaan bay dumaan dee kitaabkiisa dhan intuu kitaab taariikhu rabay inuu qoro alcibar kitaabkiisii taariikhda ahaa laakiin kitaabkiisa taariikhda oo dhan waxa ka caansan muqadamadii uu kitaabka u qoray muqadama uu sameeyey kitaabka ah researchkiisa qaabka loo samaynayo wuxuu baxtinayay kitaabka taariikheed ee ibnu khaldun qoray waxa ka caansan markaa muqadamada kitaabkiisa almuqadama la yidhaahdo waa muqadamadiisu waa kitaab weyn oo cilmiya oo saadaashan bulsheed iyo dowladaha iyo isbeddelkooda iyo waxa ka dhalanayo dhan uu kaga warramayo taariikhyahanadii dambe taariikhda daraaseeyey xaq iyo baatil waxay doonaanba ha u maraane hegel marx waxaan la sheego oo dhammi
Arnold Toynbee saaska waa nimankan la sheegay dambe oo dhamina waa daraasaday maray waa daraasaday ilaa hadda la maro oo ah in la saadaaliyo wixii tagay la akhriyo la eego waxa jooga la yiraahdo maxay dhalaysaa marka la eego wixii taariikhda soo jireenka waxa soo ah hadda waxa joogaana waa sida iyo sida iyo sida maxaynu mustaqbalka filaynaa ninka haruurka beerta mustaqbalka muxuu filayaa in haruur u baxo haddii roobkiina ay hesho wixiina ay soo baxo miyuu filayaa inuu bariis goosto maya wixii aad beeratay ayaad rajaynaysaa inuu noqdo waxa soo baxa haddaba markaynu nidhaahno islaamka iyo mustaqbalka ama muslimiinta maxaa xaalkoodu suu noqon doona muslim guud ahaaneed soomaali gaar ahaaneed dhulalkaynu degannahay maxaa isbedelaya maxaynu rajaynaynaa xagee loo wadaa waddadee baynu haynaa ma wadda wax lagu dhisaa baynu haynaa mise wadda aan waxba lagu dhisin miyaynu sii dumaynaa oo maalinta ka dambaysa god baynu ku sii soconnaa mise waa soo soconnaa ma joojin karnaa waxa kan mise ma joojin karno guud ahaan ninka maanta eega dunida iyo siday tay wuxuu arkayaa muslimiintii oo mustadcafiina laga xoog batay la tumay la garaacay la gumaystay waxaa arkayaa wadannadii muslimiinta inta ugu badan ama dagaal ka socdo ama gilgilmaya waxaa arkayaa wadannada gaalada oo cirka sahaminaya xagga sare xidiga waxu sii diraya inta dhulka waa haysanaaye inta sarena saynu ugu daraale waxaa arkayaa khatrasat algarb kibirka reer galbeedka haya iyo iyagu ninkay doonaana buugga madow in lagu qoro buugga cadna inay iyagu haystaan oo ku gelinayaan duwal ilmaariqa baad maqlaysaa dadka mutaطarifiinta kuwa diimuhu madax mareen kuwa xag jira oo kuwa xag jira maxaa lagu qiyaasaa wasaara alkhaarijiya baa liiska madow kugu dartay united nationka liiska madow kugu daray miqyaas waa kaa يعني كبر يسيطرين دوني ده هالكا تاجن ومن ورائهم يهود سيسيطر يسوي وحصورنا ويجوا حي جيستان أنا وحكا سوقات لهين نين يجا كم ده ما خبر كم ده وحيلو جيستانه دوني ده دمين يجلجلم تاي تاي إذا عدا عالم كور دمين يدواقان و أنت سامت كل وقت الماما عندي كسور جيته qofka caynkaa arkaya saadaashaas dadku siday u arkaan saadaalintaa dadku malaha saddex qaybood baynu odhan karnaa buu dadka caadigii u qaybsamaa qolo quusatay oo yaa'isiina alyaa'is ilbaa'is oo bini aadamku markuu quusto حد بو غادا ودقدقاقه دايدي يعني qofku markuu bukoodo ee la yiraahdo daawo la gala quusay oo dhakhtar daweeyo lama hayo dadku way ka qustaan soo maaha waxaad sugaysaa kulay dee nafta ka baxaysa bal intay ka baxaysa la iska hayo uma la yiraahdo intay naftu ka baxayso hal la dhawro waayo wixii aadanuhu iskula warwareegi jiray oo dhamad kala soo quusartay marka waxa leedahay Allah ya ciinak الله أركون ده قرط إلى هنا افتكار قبته دتك بدل هالك سي كمريسة دتك هالك كمريسة أنا ولي بالله من نوع بيصير نقضانه قارن تيسكفر استان سلاح ده تقول هتوبت سيجني وردقة قسك هيسو بلا دي دعيسة هاد عادة تقول وردقة الله يوم هي قار سلاح ده واحد شرا ومسكر عودنا عاد كقل لا بد قلبه كقوستين ولا شيء يسبدل هي مستقبل كماركات والله إنه كرنا ومستعجلين سيدنا نسلقنا ولا هذا ما هي نحسوح بدل أنتوا على لك عون دبتنا لا أرض انقطع ولا ظهر نبغى اسبدل لا أنسى مينين
daallow raaco waa mustacjil midhaha hore u gooyo isagoon beerba beerin ayuu rabaa inuu midhaha gooyo iyo qolo aan odhan karno si caqli ku jiray u fakerayaan oo sunan الطabiiciya ama sunan ilaahi fi اlkown aqbalay oo arka taariikhda iyo aadanaha noloshiisuba inay tilmaamayso in isbeddel dhici karo laakiin raba inay waddada maraan haddaba ayuha alaxiba guud ahaan markaynu dunida eegno innaga teennaa inta badan inoo muuqata laakiin caalamka oo dhan baa ila alhaawiya u sii janjeedha walidalik baa taarikhyahanadooda maalan arnold tomby waa gaalada taariikhda qoraysa falsafata taariikh ugu waaweynaaye casrigii dambe noolaa waa gaal ingiriis 27 xadaara in leeg ayuu taariikhdooda qoray wuxuu saadaalinayay dunida reer galbeedku say sii noqonaysaa wuxuu qabaa reer galbeedku inay dumayaan iyana ariiqulhaawiya bay cagta saareen buu leeyay waa dumayaan oo maxaa keenay wuxuu leeyahay taariikhda marka la baadho buu leeyahay ummad kasta oo dumaysa akhlaaqiyaadku markay xumaadaan ummaddu waxay cagta saareen buu leeyahay waddada dunka waddada dumista markaa dee galbeedka waxaa ku batay intixaadkii iyo istilkii dadkaoo nolosha ka doorbida dadka oo nolosha dadka kale ka kaalayso oo maraykan iminka dagaalkuma qaadeen ciraaq iyo intanoo ma qabsanin askartiisii noqotay maalin kasta 22 qof ba istilaa waa daraasaadkii iyagu soo saareen dadmin 65 daqiiqo ee kasta askari maraykana baa naftiisa gooya 65 daqiiqo oo kasta saacad iyo 5 minute oo kasta waxa naftiisa gooya askari ka mid ah kuwii dagaalamay yurub markaad eegto injineerada atibada dadka wax aqoonta aba istilka u badan waxaa batay drugga iyo waxa la cabo iyo dadka cabaya iyo waxa ma sii tira batay iyo khamriga iyo qurunka waxaa batay fawaaxishta ilaa faaxishadu ay gaadhay in qaanuun laga dhigo oo maanta dunidu dee Soomaali baan arkayay buug yar oo soo saartay gender iyo wax kaga warramaya genderku waa eray Faransiis oo Ingiriiska lagu soo daro gaaladu wadwado oo dee bini aadamka lab iyo dhadig baynu inagu u naqaanee odhanaya aadanuhu intaa waa ka badan yahay rumaysan lab iyo dhadig aadanuhu waa ka tira badan yahay kooxa badan oo kale la rabaa in meel looga raadiyo xuquuq iyo wax kale noloshii oo sii liidato sii socota dhanka kale diin la'aanta soo badanaysa galbeedka iminka ilxaadka ku sii badanaya ilxaadku waa atheism dadka aan ilaahba rumaysnayn waxaa sii badanaya almusixaat alcaqliya wadannada qaar baa dhakhaatiirta waalida ka shaqaysa ka badan yihiin dhakhaatiirta kaloo la isku daro oo dhan bay yidhaahdaan waxaa badatay bay leeyihin alinhiyaaraat aliqtisaadiya burburka dhaqaalee dunida kolba ku dhacaya in yar markay joogtaba recession bay dib u gelaysaa waayo waxay leeyihin ariiqu riba dunidu ay ku socotay waa masduud inuu awdan yahay waa la arkaa laakiin badiil ma haynee unaan camcamino musakanaat kolba suuxisaha lagu yara mudo iyo sidii loo kicin lahaa baa la wadaa kicise weydi حتى سبلك السياسي هو مسدود هذا الغوغائية بقى بدتي بين دتك عقل قال هاي ودنده هجامينه ولذلك وحقب خط الانحرافكو تبيه دمست بيعك تصاري هذا بقى هذه رير قلبات بدنا الدمي وده شيوعية دو قلبات بس كلها إلا يقوم ببرية قلبات سوكين قيبية وحبوا إسلا قلبات كي هذه بدنا الدمي بدك كلنا إن لنا وسي دمية مستقبل كدنيا دو عين كويجي ومسلمين تندي كم دي
waxa ay qabaan wax la yidhaahdo tasaadum alxadaaraat, coalition of the civilizations, isburburinta ama iska horimaadka xadaaraadka, kolba midunbaa dunida wadi karta. ugu horeyn dunidu loolan bay ku jirtaa, waa dhab. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala اlmushrikiin an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim. ahlu kitaabka iyo gaalada kale toone mushrikiin tahay in xagga rabbi khayr idinka yimaadaan ma raba baa ilaahay leeyahy. yacni dunidu way isreebaysaa, waa loolan siraac baa ka jira xaq iyo baatila. ilaahay wuxuu leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum. yahuud iyo nasaare raalli ka noqon maya inay tooda raacdo mooyaane. bini aadamka cid waliba waxay rabtaa culturekiisa ama dhaqankiisa iyo values qiyamkiisa akhlaaqiyeed inuu kor noqdo. saa daraaddeed western civilization valueskay lahaayeen liberalism is a project bay idhaahdaan, bale waa laynoo taqniinay qaanuun caalamiya baa laga dhiga. xuquuqul bani aadamkan iyo waxaan la sheegayaa waa westernist ideology, ma aha idea bini aadamku uu wadaago. waxyaabaha qaar waa la wadaagaa, laakiin qaybo badan oo ka mid oo hadda dabada laga riixayaa waa wax kale. waxaa ilaahay tilmaamaya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum. kama zuulayaan inay dirirtu socoto oo laydinla diriro ilaa iyo diinta laydinka reebo haddii ay awoodaan. yani dunida waxa lala wada rabaa dunidoo dham inay dimuqraadiyad noqoto, dunidoo dham inay western culture noqoto, dunidoo dham saa yurub tahay inay ahaato. qaanuunka yurub ama qaanuunka united nation ee yurub ay wado inuu dunida ka socdo, siday wax u arkaan inay u aragno, siday dhaqaalaha u wadaan inaynu u wadno, siday siyaasadda u arkaan inaynu u wadaan inaynu u wadno, sida nolosha loo arko in ay u arkaan inaynu u aragno. bale waxa ugu fudud isticmaarku waagii uu caalamulislaami gumaystay qayb yar buu shareecada ka indhaqarsado ka tegey. inta kale maxkamadaha waa ka qaaday, xukumka waa ka qaaday, dhaqaalaha waa ka saaray, nolosha inta kale o dhan waa laga saaray. qayb yar laakiin isticmaarku uu ka indhaqarsaday. qaybtuu ka indhaqarsaday alaxwaal shakhsiya qaybtay odhan jireen, qoyska iyo dhaxalka iyo guurka iyo caruurta iyo baabka waxaa la yidhi qolo waliba bal wadaadkooda wuxuu u xukumayaa oo u xukumo. gaalka ingiriis maxaakiimta kale isagaa haystay, laakiin qaadi sharciya buu keenay. markii horena qadaad yamaniyiina, markii dambena culammadii soomaaliyeed buu ictiraafo qudaad noqotay. imikase xeerka dunidu kaana wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro. intii uu isticmaaru ka xishooday hadda si kale la rabaa in looga saaro. ma maxay xeerarka united nationka iyo ragga iyo dumarka sinaantooda iyo dhaxalka sinaantiisa iyo ragga kore iyo dumarka kore iyo waxoo dham inay qoys yihiin, qoys in loo ictiraafo. xataa intiina iminka la iskaga daba yimi. haddaba noloshu hadday sidaa tahay mustaqbalku siduu ekaanaya? mustaqbalku nusuus qur'aan iyo xadiida waxay tilmaamaysaa inuu fiicnaanayo. taariikhda aadamuhuna waxay tilmaamaysaa in wax la bedeli karo. laakiin waxay ku xidhan tahay un beerta sidaynu u falanno innagu. walidaalik ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya iyo nusuusta sharciga horta inaynan quusanin. qunuudku inuu ku dhaco maxay alkaafiruun ayaa ilaahay qur-aanka ku sifeeyey. kuwa gaaleed baa quusta, waayo dee ninka rabbi le rabbi aaminsan ee qul illaahuma maalika almulki aaminsan, biyadihi alkhayr aaminsan, innaka calaa kulli shayin qadiir aaminsan, in tansuru llaha yansurkum aaminsan, wallahu gaalibun calaa amrihi aaminsan. dee wuxuu u quustaa meesha ma taallo. waa marka koowaad wuxuu u quustaaba meesha ma taallo. fitanka iyo dhibta iyo imtixaanku iyo ibtilaa'aadku waxaan leenahay waa meel tajaaribta aadanaha soo saarta.
waxaan leenahay waa munabbihatun lilmuraajaca. qofku hadduu hurdo dheer galo hebelow kacde kuma kaco waa la garaaca si uu hore ugu tooso. fitanka iyo mashaakilka waa munabbahaadka, waa waxa bini aadamka caqliga dib inuu isticmaalo keensada. ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إلهي بقى وحينات المامي سنة الإمهال قال هذا إنه قصميه إن له كاديه بل إن يغلفته دصور نغضان ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بإلهي. قال إن يقول يا ريسي كنت لقلي بإلهي لي هو ملايننا إن ربك بحصدين إنهم لا يعجزون وجملة اسمية مع أدوات التوكيد وضطه ما بدعي كرتبة إلهي لي إن ربي عجزي قلي كراه. لكن إنك وحايدك وحكتلين يجي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوه. نتيجة الله لك الدنيا كالصعداء إلهي باشيغا وحولي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلهي وحليه سبحانه وتعالى كوا قالوا بي مال بيكون بحنيا إن إلهي جدكي سأودان وأنا بحين دونان با إلهي لكن ثم تكون عليهم حسرة با إلهي ثم يغلبون. intaasoo mu'tamaraat iyo intaasoo waxbaa lagaga warramaa sidii loo joojin kari lahaa islaamnimada. waxaase diinta leh waxay tahay xaqiiqa ilaahay qur-aanka ku sheegaysa lan yadurukum ilaa ada wain yuqaatiluukum yuwallukum ladbaar baa ilahay yidhi uma laa yunsaruun. ilaahay wuxuu leeyahy lan yadurukum ilaa ada waxoogaa dhiba mooyaane waxba kale idinma geysan karaan. laakiin waa haddaynu inagu nahay maxay dadkii la rabay ee waddada tan hayay. haddaba waxaan leenahay taariikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku بعد الله سبحانه وتعالى إنه يعيد وحبدشه. تاريخ يهند وحيد هذا المعطيات السفرية. تاريخ ذا نبيه أما تاريخ ذا آذنه منعطفات ما لا يلقى يككل ويعطه. تاريخ ذا بنادم كويس كبدشه ما لها سبيلين هل قفة تشينج كبلابة وسماية تصال أهان dunidan oo madow oo sii dumaysa oo maamulada xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoona oo rajaya laakiin waxii loo soo dhiibay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen لعبوا سيتي يا نقاله وتي يا وحبطنا واحد هذا هو المعطيات السفرية. سيدا اللوجيك يا عادي قاعد هذا فكرته هذا ترى الدنيا ده يسبدل كسبين أو بروجكت هاي إنه غلط الجامعة ده شوفته ودره هذا يعني الدنيا ده إن لبدلوا بروجكت كاسي وحب بدأ هيومن ريسورس انتهالك وحب بدأ نقاله انتهالك وحب هاي تايم انتهالك وحب هاي انت مركينه انت أساسا نضاد ونبا سبدل كإنتهالك الدنيا ده لقى سبين كره. لكن ربي مركو الله دوني هل رسول بو صادري دبتنا الرسول كاساس ميي اسبدل كوين اي تاريخي هل انا تاريخ وحي تلمامسه بني ادمكو بعد الله سبحانه وتعالى انه يعيد وحبدشه. تاريخي هذا وحي هذا المعطيات السفريه
taariikhda nebigu ama taariikhda aadanuhu muncaطifaat meelay leedahay ka kala weecato oo taariikhda bini aadamkuba isku beddesho meelahaasi bay leeyihin hal qofaa change ka bilaaba oo sameeya tusaale ahaan dunidan oo madow oo sii dumaysa oo maamuladu xumaadeen oo diimihii inxiraafeen oo boob iyo dhac ku nool oo dhaqaaluhu sii dumay wax waliba sii socdaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray hal qof oo aan ciidan wadan oo xoolo sidanin oo agoona oo rajaya laakiin waxii loo soo dhiibay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa maqasheen lacag uu sitay iyo dhaqaale uu watay iyo waxba toona waxay dhahdaan waa almucطiyaat asifriya sida logic ee caadiga haddaad u fikirto haddaad tidhahdo dunidaynu isbeddel ka samaynayna oo project aynu qolada jaamacadda joogta u diro waxaa odhanayaan dunida in la bedelo projectkaasi wuxuu u badan yahay human resource intaa leeg wuxuu u badan yahay dhaqaale intaa leeg wuxuu u baahan yahay time intaa leeg wuxuu u baahan yahay intaa markaynu intaasu sannadood wadnaba isbeddelka intaa leeg dunida laga samayn karaa laakiin rabbi markuu la doonay hal rasuul buu u soo diray dabeetana rasuulkaasaa sameeyey isbeddelka weyn ee taariikhiga ah oo ku sameeyey 23 sannadood oo qura inuu taago dunida dawlad muslima oo dib u ah wuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dabeetana dad badani ridday dib ugu noqday ilaa 3 magaalo qura ay diinta ku soo hadhay ilaahay abubakar buu u bixiyey oo muddo sanad gudaheeda muslimiintii dib ugu soo wada celiyay dadkii ridoobay oo dhan 2 sano gudahoodna ku bilaabay inuu jabiyo dawladihii ugu waaweynaa ee dunida ka jiray muddo yar aan 10 sanaba gaadhayna waxay noqdeen cidda dunida ka talisa less than 50 years ay dunida dacaladeeda kaga talinayeen isbeddelka intaa leh ee dhaqaale leh ee cilmi leh ee bulsho leh ee dad leh wax kale idan taariikhdu waxay sheegaysaa aadanuhu hadduu mabaadi'da saxa qaato inuu yahay ka wax bedela iyaga gaar kuma ahayn taariikhdii hore ilaahay wuxuu inooga warramay dunidoo nin qooqani joogo oo le ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri qaala lilmala' buu weliba ku leeyahay hadda maaha caamada iyo laynmaanka kuma leh waa golaha wasiirada iyo xaashiyada iyo madaxdu wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idinma ogi nin kibirku gaadhsiiyey inuu yidhaahdo qabiil dhan ama ummad dhan oo jirta ayay rag dhalin wixii ay rag dhalaan ha la laayo dumarkana ha la iska daaya haynoo shaqeeyaan fircawn la yidhahdo qur-aanku ka warramo ilaahay isbeddelka markuu ka warramayo wuxuu tilmaamay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum innahu kaana min almufsidiin fircawn intaasaa ilaahay ka sheegay xagga kalena ilaahay wuxuu sheegay ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين waxaanu doonnay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwii la gumaystay ee la dullaystay ee laga xoog batay inaan ka yeelo hormoodka dunida baa ilaahay yidhi a'imma hormoodka duniyeed oo aan ka dhigo wanajcalahum alwaarihiin kuwa wax dhaxla boqortooyinkan iyo dowladahan iyo waxa kan dhaxla wanumakkina lahum fi lard dhulka inaan iyaga gacantooda geliyo wanuriya fircawna wahaamaana wajunuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun waxaan kaloo doonay baa ilaahay yidhi fircoon iyo haamaan iyo ciidamadooda waxay ka cabsanayeen inaan tusiyo baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala hal wiil baa reer banu israa'iil dhashay oo ilaahay badbaadiyey oo lagu badbaadiyey in badda lagu tuuro oo lagu badbaadiyey ninkii dadka laynayay inta loo gooyey in isaga la yidhaahdo war kori muuse badda inta laga soo qaaday gurigii fircoon la keenay islaan guriga joogta unbaa ilaahay uga nixiyo tidhi aan wiil ka dhiganno dabeetana gurigaa lagu koriyey muusahaas baa gacantooda reer banu israa'iil ilaahay ku badbaadiyey laakiin weli reer banu israa'iil may noqonin dad wax iska dhicin kara kuwan ilaahay baa halaagay fircoon iyo gurubkiisa inta badda loo kala jeexa la geliyo masiibo xagga rabbi kaga timaa dhulku la degay laakiin a'imma markiiba miyay isu bedeleen reer banu israa'iil maya
reer banu israa'iil waxaa la yidhi bayt almaqdis furta waxay yidhaahdeen dacfigu weli halkuu taagay dadku markuu gumaysiga ku soo kore muddo ku jiro wuu hami jabaa waxay yidhaahdeen maye qoladii horeba rabbigaabaa halaagaye adigiyo rabbiga shaqada iminkana ku dhaqaaqaana waa idin sii sugaynaa markay madhaan baanu magaalada soo gelaynaa bay yidhahdeen socankaa qur-aanku tilmaami maayo innahaa hunaa qaaciduun bay yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila innahaa hunaa qaaciduun ilaahay wuxuu ku xukumay 40 sana yatiihuuna fi lardi baa la yidhi nebi muuse markuu ilaahay baryay yidhi aniga iyo waxoogaa yar baan hayaa waxaa la yidhi 40 sannadood dawaq gala 40 sannadood bay dawaq galeen culimmadu waxay dhahaan 40kaa waxaa madhay jiilkii niyadda liitay jiilkii gumaysiga ku soo koray baa madhay jiil xorriyad ku barbaaray baa kobcay dabeetana qiyaado hogaamisaa ilaahay u dhiibay yuushac ibnu nuun qiyaado rabbi weydiisanaysa ilaahu cadceedda ii jooji inta aan qolada tan ka takhallusayo biyadihim baa biyadih ayaa ilaahay ku badbaadiyey maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay umamku taariikhda waxay qoraysaa oo ilaahay kitaabkiisa inoogu warramaya inuu isbeddel aadanuhu inuu sameeyo hadduu manhajka saxa qaato mahma ay madowdahay inuu bini aadam wax bedelo taariikhdii horena ay ka dhacday taynu inagu ku abtirsanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay ka dhacday ka labada aynu rumaysanay waxa yahay baynu nidhi inaynu rumaysanay ilaahay inuu dunida isagu maamulo qul illaahumma maaliki almulk tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء إليه إله ملكك عدة دونتنا واتسيسا عدة دونتنا واتكوي عيسى لما ورنا وحل يدو واتكسيبتا واتكتشيدا بني آدم كلا ما فتشيه كرسي قصرين صفة ذلك مقعه إنه أما حوق لك قاضه أما السيستم أنو كبح كرينو هذا دجستينو كري حيين وشرمو يعني بني آدم كما فضودين لك الريحو كرسي قصرين هلنا ينقاضك الصدحات مبشرات با إلهي قرآن كينا وقشيغا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كو مبدئي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي الصحابة دي سدوني دا كوبا دلين إلهي وحيوان دين إلالينا يا كاسي مدو بوبا يسوغا هياكسن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ وإنا دين إلالينا يا با إلهي مبدأ هدي الله إلاليه محاول لمن عد كل نقطة الرميسار راعده وكل ليسانيا إن تنصروا الله ينصركم مبدأ ورد ورسني إلهي بأوح القرآن ككله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي بأوحي نوشيغي قوشني نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة وقولكم أي كوبنين اعدي إيمان يا عمل صوبان لقاها لين مبدأ سقاضته ليستخلفنهم بإلهي اللام والنون التوكيد بإلهي سوقي ليستخلفنهم اللام المعطى للغسل اللام كل دارتي ورد حلسين ورد حلسين ورد حلسين بإلهي ليملك كما استخلف الذين من قبلهم سيدي يوغي يغا كهريه وضدا راعي بإلهي ورد حلسين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ما أنت مسلم بانا هي عبسا لغا قبا qofku wuxuu isleeyahay waradaada islaamka ku yara dhigdhigana taar magaalada ku aragtaa warbal gaalku yeena arkinay odayga wadaadkeega wuxuu ku leeyahay warbal dahaaye gaalkiina waa joogaayo ina arkinay bal wixii aan qoqoqo hartaan meelaha ku qabqabto isku soo mutaxina ilaahi wuxuu leeyahay wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada lahum diintu raali uga noqdayna alla wuu makansiin waxa kaloo ilaahay leeyahay ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا عبسيدا يقبين قداشيدنا إلى هاي النبتقال يوصين لكن شرط قوام حي
yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya jidkaa inay raacaan saddex suuradood tiraba wax ku dhodhow ayaa ilaahay leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala اddiini kulih fii suurati الtawba ilahay wuxuu leey yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yatima nuurah walow kariha alkaafiruun gaalo waxay rabtaa inay ilaahay nuurkiisa demiyaan laakiin ilaahay waa diiday inkaasi demo diintani ma demayso innagu inaynu raacno iyo wayastabdil qowman gayrakum uma laa yakuuna amhaalakum inay dhacdo saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa rasuulkiisa hanuun iyo xaq iyo diin dhaba ku soo diray liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun fii suurati safna yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuuri walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaq liyudhirahu cala اddiini kulihi walow kariha almushrikuun fii suurati اlfatxina ilaahay muxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaq liyudhirahu cala اddiini kulih wakafaa biاllahi shahiida idan kitaabu rabbina aan rumaysannahay baa wuxuu sheegayaa diintan inaan haalib laga noqonayn wuxuu sheegayaa inay maxfuud taho ilaahay ilaalinayo wuxuu sheegayaa ciddii raacda sidii kuwii hore loogu gargaaray in loogu gargaari doono ay dib u soo noqonayso ama axaadiistu iyaduna waa tiro badanta sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan la yidhahdo silsila alaxaadiid saxiixa wuxuu ku bilowdayba cinwaan uu bixiyey almustaqbalu lilislaam cinwaan uu bixiyey buu ku bilaabanaya aw shan lix xadiid ku soo aroorinayo masaladaa ka warramaya waxaa ka mid ah xadiidkuu nebigu leeyahy in allaha zawaa liya alard ilaahay dhulkuu ii soo ururiyey fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha bariyo galbeedba waan arkay wa ina ummatii sayablugu mulkaha maa zuwiya lii minha ummaddayda taliskeeduna wuxuu gaadhi doonaa dhulka inta lay tusay buu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam markaa dunida weli ma wada gaadhin taliskii muslimiintu waxau xadiidkani tilmaamaya inay jiri doonto mar taliska islaamiga uu dunidoo dhan gaadhi doono xadiidku saxiixu muslimkaabuu ku yaallaa isagu bale nebigu wuxuu leeyahay xadiidka ibnu xibbaanna warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya layabluganna hada alamru maa balaga alleyl waannahaar diinkani inuu gaadhi doono inta habeen iyo maalin gaadho habeen iyo maalin intay gaadhaan alkura alardiya kulliha soo maha caalamka o dhan bay gaadhaan diintani inta habeen iyo maalin gaadho ayay gaadhi doontaa buu nebigu yihi walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allahu hada diin bicizi casiizin aw bidulli daliil cizan yucizu allahu bihi lislaam wadullan yudullu bihi lkufr gurina ma jiri doono dunidan ka midiiba buu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam ilaa diintani way geli doontaa guri kastoo dunida ku yaalla mid baadiyad iyo mid magaaleedba wuu gaadhi doonaa ama wuxuu ku gaadhayaa iyadoo muslim oo la rumeeyey ama iyadoo la haysto oo buu gaadhaya waa gaadhaya waxau nebi moxamed sheegay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka kale culimmadu saxiixa ku tilmaamayaan in nebiga su-aal la weydiiyey ah labada madiinota la horfuranayo cabdillahi bn camar ibnu caas ayaa waxaa la tilmaamaya in la weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awala alqustanطiniya wاrumiya labadaa magaalo tee la horfuranaya qustanطin oo constantin magaaladii la odhan jiray luga alcarabiyana qustantin la yidhaahdo constable waa magaalada hadda la yidhahdo islampul turkiga madiinadiisa tan istanbul la yidhaahdo hadda weeyaan rumiyana waa rooma magaaladan la yidhahdo talyaaniga ku taalla waxay ahayd dowla albizantiya ee ay nimanka cadi lahaayeen na waxaa looga talin jiray istanbul diin ahaanna waxaa looga talin jiray maxay roma dee kaniisaddii meeshay ku taallay catholigu joogay
nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay labadan magaalaba in muslimku furan doonaan ta la hor furanayana wuu sheegay wuxuu nabigu sheegay in la hor furanayo maxay Constantine goorma la furtay 852 meelaha markay hijriyadu maraysay that means 808 qarni kadib nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dheeraad ayaa la furtay maxay Constantine tuu sheegay Roma miyaa la furtay demay wali waa kan talyaanigu ka talinaya ama talyaani ha islaam ama muslim kale ha qabsadee Romana inay muslim noqon doontaan nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaanu sheegay labada magaalo taas inay hor islaami doonto ta kalena madiinatu hiraqal baa la furan doonaa buu nabigu yidhi wuxuu nabigu sheegay nebinimadu inay wakhti joogi doonto intii rabbi doono dabeetana la kor yeeli doono khilaafa inay ku xigi doonto calaa minhaaji nubuwa dabeetana la kor yeeli doono waxaa ku xigi doona inuu nabigu yidhi mulkan cadan madax cuduuda dabeetana waa la kor yeeli doonaa waxaa ku xigi doona buu yidhi mulk boqortooyo jabariya dadka qasabtoo laysa iyana mudday joogi doontaa waa la kor yeeli doonaa uma takuunu khilaafatan calaa minhaaji nubuwa waxaa mar kale soo noqon doona buu nabigu leeyahay khilaafa calaa minhaaji nubuwa marka qodobka koowaad waxaan leenahay taariikhda waxay tilmaamaysaa inay suurtagal tahay xadaaradku inay dib u soo noqdaan haddii mabda una joogo dadkuna uu rumeeyo aadanuhuna inuu yahay waxa wax bedela qodobka labaad waxaan leenahay kownkan ilaahay gacantiisa ku jira isagaana badbedela qodobka saddexaad waxaan tilmaamaynaa nusuus qur'aan iyo xadiidka aanu rumaysannahay ka mid ah oo cadcad baa waxay sheegaysaa islaamnimadu inay dib u soo noqon doonto qodobka saddexaad ee aynu tilmaamayna waxa weeyaan maanta dunida muslimku wuxuu ka mid yahay dadka ugu badan ee badanaya halka xadaarada kale dadka ka talinaya maanta ay yihiin dadka dunida yaraanaya masalada ma fahmi karaysaa muslimkuna tiradiisu way soo badanaysaa مثلا وسترن كانت تردود ويسي يرانسا تصالح فضوضا كسيو 1905 ميلها قرنقي لباطنات مثلا بلو بيسي مصر 5 مليون بيهيد انجليز كنا كونتن مليون بوها امركو دوليدا قبسنا يدي حوقة قوة سنا كونتن مليون بوها مساردنا 5 مليون بيهيد قرنقي كوبيا لباطنات انجليز كو ايمسا مع عدد كيسين مدوية وحن كالوردر مركا لغو دروا دي 60 مليون مصر نواي مسا فبغل مليون مصر 5 مليون باي كتما بغل باي مريسا انجليز من هالكيسي يومو جوبا فرانسيسكا هي جيرماني دقال كلا بعد الدنيا دا السيدة يكاقا بحين باي وليه اسبدل بدالكو مدعين معناه دي وحويان يوروب أما نينك عاد أردن مركا لا يسكت دره قويس لبدي قف بدل الهرد على متشرو مركا لا يسكت دره ومدينة يشتري حلوة بهاي 2.1 rate of growth كينو قارو بقول كقويس that means لوا بقول رجعي بقول دمرويس لوا بقول كقويس كستاين يدلان لوا بقول يطبان قف سي ومدة شريتان كيدو سي صعدة متشرو ودنا لها wadannada yurub ugu badane 1.8 bay marayaan qaarna 1.25 bay marayaan talyaaniga waxay leeyihiin saddex jiil kadib uu baaba'ayaaba that means 60 jirka maanta jooga markuu dhintay madho da'da ka dambaysa intuu talyaanigu ahaan jiray thuluthin ku dhadhow waa lumaysa da'da ku xigta thuluthin ku dhadhow waa lumaysa ma u malaynaysaa magaalooyin dunida ka mid ah oo westernka iyo dhaqankoodii ciddii qaadatay مثلا Japan magaalo dhan oo la leeyahay sanad qofba kuma dhalan qof dhinta mooyaane say kula tahay intay sii jiraysa qurunkoodan marka lagu darana Canadianka waxay dood bay qaar furayeen ay doodayaan
qowmuluudka laga doodayo markaasuu mid iyaga ka mida doodayo wuxuu leeyahay war hadda raggana ragga u guurisaan dumarkana dumarka u guurisaan garantayba 60 sano kadib cidda Canada degaysa ii sheega buu leeyahay ilaa nin wax ka dhali maayo naagna naag wax ka dhali maysa intiina nin 60 jirka ku maranaysaan buu leeyahay kadib yaa wadanka degaya buu leeyahay ugu tala gashay that means iyana tiray si yaraanaya muslimiintuna waxa la leeyahay tiray soo badanaya bale waxa la leeyahay muslimiintu tirada soo badanaysa waa dhig shabaab ah waa dhalinyaro waa da'yar umamku markay dhalinyaradu soo badato macnaheedu wax weeyaan waa ummad koraysa ummadina way sii gaboobaysaa that's why maanta Europe ay u qaadanaysa qaxoontiga caafimaad baa loo qaataa wad u malaynaysa laakiin shacabka iyo siyaasiyiintu waxay isla fahmi la'yiin shacabkuna wuxuu arkayaa dhaqankiiyo isbedelaya nin madow iyo nin diin kala haysta wax kala soo badanaya siyaasiyiintuna waxay u arkayaan dhaqaalihii oo istaagaya warshadihii wixii oo cid ka shaqaysa aan lahaynin dabeetana maankii baa isla keeni la qolana waxay leeyihiin xoog baynu u baahanay si dhaqaalaheena iyo dunida aynu u saytarayn karno aynu u jirro qolana waxay leedahay culture-kii baa baaba'ayo dad kale noqonayaan inagii noqon mayno marka labadan sidii loo waafajin lahaa ayaa siyaasiyiinta iyo isku haystaan maxay iyo shacabku isku haystaan laakiin muran kama taagna Germany islaanta haysata hadlayso waxay leedahay sanad kasta nus milyan dad aan u baahanay inaan u qaadano nus milyan bini aadam aan jarmal ahayn ayay rabtaa inay sanad kasta qaadato idan النمو الديمقراطي wuxuu sheegayaa deeganin yar baa idin sheegay Soomaalidu maxay isku gumaysan jirtay inaan gumeed yalla aan dheera Soomaa inaan gumeedku waa inuu laga ilmaadeer batay un baa hayay ma gun kale oo hayna abayna wada dhalay meel baan ka wadanay isku reerun baynu ahayn markaynu kala yara tira badanay un baa nina yidhi laan dheeraan hayo waan ka ilmaadeer badna waan ku qasbi karaya oo waan ka xoog iyo xoolaba badnaanaya nina la yidhi waa laga tira iyo xoogaba badiyo saa aadanuhu waa sidii aadanuhu tiradu iyo tayadu way wada socdaan inta badan way wada socdaan mubashirka afraad aan arkayna ee mustaqbalka sheegaya sidan uu madowiyay inaan uu madoobaan doonin waxa ka mid ah islaamku iyadoo laga xog batay muslimiinta oo la gumaystay oo laga cilmi batay oo laga dawlada batay oo laga siyaasad batay oo laga hub batay ayaa haddana wuxuu yahay diinta ugu faafis badan maanta dunida ka jirta waa asrac bay yidhaahdaan الدين انتشار مبدأ الرمية الدنيا هو مبدأ وقوف في بدن أصل كوحه هدي لقى حق بطين مبدأ أجونا ونقضى مبدأ لقى حق بطين إنه سير هذا يصير سيشيقه لكن هو عكسها مسلمين تيجوا لقى حق بطين يا مبدأ دي هذانا سيفافية تاسينم حي شيء جيسه وحي شيء جيسه مستقبل إنه دتكني ليه هو حلم ده حتى دلالك المسلمين تا شلي دتكي تكن شري ما أنت دتك تكذا كبدر صحيح كما دتكي إسلام كنا كان كيس هايستي هذا كو أذاك باو حي كبدر ينتي شلي تشوكت أقانت الشرع جاي إسلامي جاي ما أنت تشوكته وحي كبدنا نستي شلي تشوكت وحموقتين إسلام كوكشرا محي كبع مركب بني آدم كلا قيمين يلا با لبا مقياس أما لبا بارامتر با وحلقو إيجا quality and quantity الكم والكيف وحاس تراهان انتو بطي تياهان سي انتو بطال لغو قيمية صحيح كما وحين لأنه مسلم تراهان انتو بطي وصعدا وبضانيا تياهان دين انتو وصعد نقنية مثلا وحيد هذا buugga dunida ugu taabacaada badan la bayraada waa Injiilka waa Bible-ka dunida madbacadu waxay daabacaan ugu badan laakiin buugga ugu akhriska badan la bayraada waa Quraanka midna uu taabaca badan yahay midna waa maxay waa akhris badan yahay Soomaaliyeed ee ka qiyaasban nin Soomaaliyeed oo aan hadda wali nolol ku ogaa oo culimadii hore ah ayaa wuxuu yidhi markii aan fiqiga bartay iyo manhajiyeenaha kan aan arkay taariku salaadka iyo halka lagala baxay ayaan sidii buu yidhi war ilaahay baa kula gabar tukata guurso wadaadadeennina dee fiqigoodii wuxuu siiyey wadaadada bar ka mid ah idinku inayna soo gaadhin baa laga yaabaa inay rumaysnaayeen gabdhaha Soomaaliyeed inaanay salaadu ka asaxaynin
soo saamayda soo gaadhin waayo qodobkani waxay rumaysnaayeen jidhka qayb xagga sare ahayd inay xagga hoose noqotay markaa inay daahirsanaynin saa daraaddeed culimmada badh baa waxay fatwoon jireen inay salaadu ka asaxaynin walidaalika hablaha soomaaliyeed may tukan jirin waayo waxaa la rumaysnaa in salaaduba ka asaxaynin wadaadkani wuxuu leeyahay waxaan anigu qaatay oo aan sidhi war waad aragtaa manhaajkii iyo kutubtii fiqigana taariku salaad waxaa laga sheegay inan tukata guurso gobollada waqooyiguu ka tegey siduu inan tukata u raadinaya baar dheer u ka helay ka warran in carrigaa dhan laga waayo gabarh saxo nin wadaadi guursado maanta gabarh soomaaliyeed intay tukataa yacni waxaad garanaysaa diintu intay faaftay marka intee gabarh soomaaliyeed xijaab xidhan intee nin soomaaliyeed tukada intee maanta markaad meel isugu timaado dadka inta tukanaysa iyo intaan tukanaynaya ma badan inta salaada u soo baxa macnaheedu waxa weeyaan islaamku renaissance buu ku jiraa wuu socdaa wuu dadku dhibtan baa u muuqata iyo saa laynoo tumay laynooga xoog batay laakiin waxaan leenahay waxa ku jira renaissance waa fuf baa jira ah in islaamku uu soo noolaanayo idan haddaynu quality iyo quantity labadaba ku qiimayno islaamnimadu way soo socotaa qodobka toddobaad aan tilmaami karno waxa weeyaan ama sideedaad aan idhaahdo waddanka muslimiintu ay degan yihiin all resources waxa laaliya wixii kayd ee sheegaya aadanuhu u baahan yahay mustaqbalkiisa bay haystaan yani dunida muslimku degan yahay energy-ga ugu badan ee dunida ku jira hadday shidaal tahay hadday gaas tahay iyo wax la mid ah hadday tahay waxay haystaan cadceedda ugu badan ee dunida dadka haysta weeyaan dhulkoodu waa dhulkaan 12 biloodba waxba laga beeri karaa yurub 3 bilood bay nagu gumaysataa 3 bilood bay wax beeraan saddexdaa waxa u soo gaay ugu qoodiyaan inana 12 biloodba wax la beeri karaa gaajana wayna haysaa waa dad maanka isticmaalay iyo dad caqligoodu fasax ku maqan yahay keeni fasax baynu u diray inagu wali muruqaynu tijaabinayna inaynu kala xoog badno istilaaw baynu tijaabinayna laakiin caqligu fasax buu ku jiraa iyagu se markay caqliga isticmaaleen iyagoo aan sharciba ogeyn caqligoo qura markay isticmaaleen waxay keensadeen inay waxay cunaanna haystaan dunida kalena inay quudin karaan ama wax ka iibin karaan waxaan leenahay all resources caalamka islaamigu dhulku degan yahay waa almiyaahi daafi'a maanta raashiya oo dhamme waxay la'dahay deked biyo kulula deked maraakiibtu ay sanadkoo dhan ku xidhan karto raashiya ma leh raashiya waxay badleed oo dhamme waa baraf ka fadhiista saa daraaddeed weli waa duulimaan uu raadinayo reer galbeedna weli waxay ka ilaalinayaan miyaahi daafi'a inay soo gaadho biyo kulul waddan aan lahayn dekedina maanta dunida ma soconayo muslimiintuna kanaliska dunida laga maamulo iyo dhulka istaraatiijiga oo dhan bay fadhiyaan dhulkooda wax weeyaan waa santarka dunida adduunka isku xidha bariya galbeedba kanaaladoodan yaryar baddeennan yara cas maraakiibta dunida ugu badanee bad martaa wax ka mid ah yacni dhul istaraatiiji ay degan yihiin resourceskii istaraatiijiga ee dunida ay ku dagaalamaysaba iyaga dhulkooda yaalla dhulkan yar inagu ku gaajaysanay baa dunidu isku haysataa maanta resourceska ku jira waxaan leenahay dhalinta ugu badan ee kacaamaysa baa caalamulislaami degan dadka ugu badan ee shabaab ee kacaamaya ayaa caalamulislaami degan idan waxaan leenahay mustaqbal ummadda muslimiintii way leedahay ka sideedaad ama sagaalaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tacriyat aljaahiliya waxa fadeexadoobay mabaadi'dii dunidu ay haysatay oo dhan baa qaawisantay waagii hore shuuciyad baa dunidu ku baaqaysay way duntay waa laga qancay mar dambe reer galbeed bayna yidhi liberalism iyo xorriyad iyo cadaalad iyo kala dambayn bay ku dhawaaqeen reer galbeedna waxoodii oo dhan muddo yar bay ku fashileen cadaaladdoodii guantanamo iyo maxay abu qurayb baa fashiliyey iyo xuquuqul bini aadamkoodii dhaqaalahoodii waa kana uu sii dumaya nudamkoodii siyaasiga waa kan qawqaa'iga noqday hadda loo taagla'yahay awal yaro ay liitaa gacanta ku haysay laakiin hadda gilgilan badan baa ku socda waxaan leenahay wixii wax la moodayay way qaawisantay cidda qaawise ugu badanina waaba iyaga khubaradooda maanta quus ka taagan systemska ay haystaan ma aha mustafa iyo wadaad jooga
عالم الإسلام وأقويهم كودا واركا طريق مسدودة ورجتك أذني حق الله بحيا يجا تاجن مرة ما أنت لين نقالي وأودمه إسلامك فينانسينج هي إسلامك بانك وكويسة ريسيشن إسكي كنا بتقليه ما قادن كرنا ما أنت لين بنجيدي وويناي الدنيا وحيلين إسلامك ويندو هلا فرو ده قد إسلامية ده قد إسلامي قام محل فرع ما إسلام كاللوجو هيلينيا ما يوائن دقالها الدنيا بالنسبة للسبعين كرو أحلى وحي آدنه هيك سنة ينقص بالغ شوقة يد لفتيدو هداد ميل كله وهنقل تاجي سوا ده مدة سيجيدس لكن هداد سوهم جودو ده واحد صورنا صوروا خلا باربارو تما لقوهم جوبيه وهلا أنا عالم كرر قلبي إفلاس كسوق شراء إفلاس أخلاقية نقل كا عيدوبي إدمان كيا مصحات كعقل كيا وحباب بطي الدبر نبتن داعي مسلم كايستا وحانو أركاينو يهي محي نبتي الوكالة مير ميي ماشي دادك الله باهنا وكسو بحيي دي هدية قرى الله يساسية ما هين دوني دا هوغاميسو مسلمين تو دوني دا مركي هوغامين يان هدية قرى ما هين مبادئ باي هي يدد وحر رميسانو الستة نبي إبراهيم باي لهي امتحانات بالقلي نبي إبراهيم إلهي محو ويديست واجعلني للمتقين إماما بو إلهي ويديست دبتنا والله اتحاما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى والله اتحاما امتحانات تربض أبو قرآن كورمي النبي إبراهيم لقلي لكن إلهي وحيونا وقمر خاتك عي إبراهيم امتحان كينو كوكو ليستي مركو كوكو ليستي إلهي محوكا لقى النبي إبراهيم إمامين وددك ونغضه لكن نبي إبراهيم أعبرني ما قاضي وحيولي إله ذرية ديدنا ومن ذريتي بيولي محل لو جواب لا ينال عهدي الظالمين بإلهي أنا قبل لك وما قاعد بإلهي الظالمين يعني أنت إنه ظلم سميناه فرديناه استلناه اسبابناه اسماغناه نفط السكانه دي نصر وسيدا كمية ماذا ناصر كان أنكور رمية إيه وحنا شيء يصيدم كمية ماذا إيه وحكوية ماذا إن نسبة لنا الأولاد إننا سمينا أنت إنه فرديناه أوران ما إنه مباشرات القرآن كيكو يالي هي سنة كيكو يالي نوران ما إنه نبي محمد الصحابة سمر كي شبنا يدهدين ميانا المسلمين هين محل وجواب قل هو من عند أنفسكم أن هذا بيدهدين لا يفعكوا يده قل هو من عند أنفسكم ما حين وباحنا وركان صوكو بوحن لي إن كستو ما أنت الدنيا مدو أي كتشرته آدنا اللي بيوغم وغطه لكن دتك أقويها كمسلم كبدام باو بحيسة الماميسة ماشي لغة بحلها بحال لأن المبشرات في يوردن أما وحيابها الشيء هي إنه نلشن قاري كرنانا وترى بدني لكن وحين وبهنا يصدق حلو قرير إنه سفي عن سلا قرنا كو هدف كونه عضاضه ماشي نوصل عنا عضه وحق ربنا ينوكعنا وحي إلهي سودة شيء وطلقلينه ينقصحه هنا نراعنا صين نقصحنا وضوح الهدف والطرق الموصلة إليه قولك يا يولك يا ماشي عنقصحنا وضدوا إن أنا يلومين أدي تشتكو حقا كاحقاد وضح حقا سياقا تكور وقلدن تيدي أدارت كل منك كور سورة القرآن كوا أخرس بدل لوا فاتحة سوامها فاتحة ده سؤال شو وين إلهي يلي ويدي استوام حي اهدنا الصراط المستقيم ندوية سوامها ما أنك است إلهي تضبيه طبعا شري سرت أقبل ويدا واحد ويدي ستام حي إلى وتوبيها النصار الصراط في اللغة وحلا إلى هذا حقافك جتك بلارن جتك هدو يري حي ولو توبيه وحلا يا بين ضدك بو قادي ويا ما لقى خلالهم لكن هدو حقاف النقطة ومحي ومال دتك ودن قاديسا
isla markaa waxaa la yidhi waa straight waa mustaqiim waa toosan yihin waa meel markiiba aad ku gaari karto your goals hadafkaaga aad markiiba ku gaari karto yoolkaaga iyo meeshaad u socota aad gaari karto ilaahay waxaa weydiisataan baa la yidhi asiraat almustaqiim siraadkana waa la sheego waxaa la yidhi maxay siraat aladiina ancamta calayhim waa jidkii ay mareen kuwii ilaahay u nimceeyey nebiyadii iyo rusushii iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo dadkii fiicnaa jidka ay mareen laba jidna ilaahay weydiista inaanu idin marin baa la yidhi labada jid iyana astaan yaroo kooban bay leeyihin waa maxay qolo aan mabda'aba helina cidla carartay oo ay madax ka yihiin nasaaradu waayo nasaaradu asludiin bay ka lumeen asludiin waa maxay khaaliq iyo makhluuqu inay kala soocan yihiin waa asludiin ilaahayna inuu soo waxyoodo addoon addoomihiisa ka mid ah oo rasuul la yidhahdo dadka wuxu sheegaa diimihii xagga alle ka yimi oo dhamma caynkaasay ahaayeen min nuux luut ismaaciil waxa nebi ilaahay soo diroo dhammi saasay ku wadeen mar qudha yidhaahdeen maya 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 ilaahay baaba soo degay oo isagoo bini aadama soo baxay waa asludiin bay ka lumeen iyagu waddo khaldan bay carareen ilaahay wala daaliin buu kuwaa yidhi waddadooda ha marina qolana hayr almaqduubi calayhim baa la yidhi hayr almaqduubkuna yaa u calaamada yahuud maxay calaamad ugu noqdeen ilaahay wuxuu yidhi yacrifuuna nebiga waxay u garanayaan baa la yidhi kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ilaahay waxay nebiga u garanayaan sida ilmi qofna miyaa ilmihiisu ka qaldamaa haddana iyagoo garanayay ogaanu dhinac mareenoo diideen taa macnaheedu waa maxay yana dariiqa xaqaana intaad garato inaad haddana dhabarka u jeedsanayana waa waddo kaloo lug qur-aanka waa garanaynaa ilaahay baa soo rogay laakiin marka lagu yidhahdo qur-aanka raac qur-aanku dhaqaaluu sheegayaa siyaasad buu sheegayaa dhaqan buu sheegayaa akhlaaq buu sheegayaa caqiid maya bal horta kitaabka inoo hayo oo odayadii ha loo yeedho oo ma ilaahay baad oyada ka door biday afar odayo halka fadhiya maya qolada reer miyiga saasay leeyihin bal guddi ha loo saariyo xeer beegta iyo odayo oo ilaahay ma odayadaa kaala weynaado kaala aqoon badan ma yagaa danta dadka ka yaqaana qolada tidhi aqoonyahan baan waxay leeyihin khubaraha loo saaro war ma afartan gaalada xaggooda ka yimi baa kaala batay ilaahay subxaana wa tacaala yacni waa mabda'iyo aad arkayso marna waxaad leedahay waa ilaahay kitaabkiisii sidii yahuudeedna dhabarkaad u jeedinaysaa iyana socon mayso idan hadafku inuu caddaado dariiqa loo marayaana uu cad yahay kaasi waa marka koowaad midda labaadna waa alqiyaada araashida in la helo hoggaan toosan hoggaanku goormuu raashid yahay nebi maxamed ilaahay muxuu ku sifeeyey laba sifaa la yidhi midna ma leh maa dalla saaxibukum wamaa qawaa baa ilaahay yidhi ma lumin oo jid cidla'a marka horeba ma hayo qofku isagoo daacada hadduu jidka ka lumo dee wuxuu kugu sii wadayaa un waddo aan waddadii ahayn wamaa qawaa baa ilaahay yidhi riwaayadana waxaa la yidhaha qofku xaqa garanayo maxay ogaan u dhinac mara nebi maxamed labadaa midna maa waxaan u baahannahay qiyaado aan labadaa midna ahayn sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin